Sibad ballaaran ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jihada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Melbourne waddanka Australia ayaa waxaa lagu sabootiyay fanaanka weyn ummadda Soomaaliyeed Axmed Cali Cigaal oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Melbourne waddanka Australia. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga warramay taariikhda Axmed Cali Cigaal iyo muhiimadda uu fanka iyo suugaanta u leedahay ummadda Soomaaliyeed. أحمد علي عقال الفنان ملحن موسيشن dadku waxay lahaayeen abwaan waaba yahay waa natural min saddex isku helay fanaaniintii Soomaaliyeed shantii u sareysay buu ku jiray Axmed Cali Cigaal isaga marxaati furaya waa yaraa fanaaniin waa jireen heesa laakiin aan muusig tuman karin aan cod samayn karin abwaanku markuu heeska sameeyo cod buu rabaa codkuna muusig buu rabaa waa isku xirayeen shanta u sareyso Axmed ku jira horta barasho wanaagsan wax aad iyo aad loogu mashquulo way tahay luqadda iyo dhaqanka iyo suugaantu waxaan nasiib daraa in aad loo dhaawacay suugaantii oo hees iyo la isku xiray suugaantii la isku xiray oo dagaal weyn lagu wado oo iskuuladii laga rabo nashiido in laga akhriyo laakiin nashiidaduna waa erey carabi ah macnaheeduna waa un hees markii si loo eego waa hees carabi ah marka nashiido in la baro dadkii heesihiina lala dagaalamo oo heesuhu waxay noqon karaan nabi ammaan bay noqon karaan wacdi bay noqon karaan diin bay noqon karaan waalid ammaan bay noqon karaan mid maxaan ku raay qarannimada lagu dhisay noqon karaan mid dad lagu heshiisin karay noqon karaan ma ahan oo kaliya midaan hadda maskaxda dadka ka haysata waxa weeyaan aan ku soo kornay aan la soo kornay aan ku soo hana qaadnay qof walba oo Soomaali ah ama da'danada ha ahaado ama da'da naga yaryar ha ahaado ama da'da naga weyn ha ahaado aan wada naqaan waxa weeyaan mujtamac markii la fiiriyo mujtamac sidiisaba markaa fiiriso hadduu mujtamacaas uusan ahayn mujtamac la gumaysi ah sida ama Latin America kaleeto ama mataqaana mujtamacyada sida Australia kaleeto ee la qabsaday wadan aan la qabsanin oo wadan la yiraahdo origin ama aborigin run markaa fiiriso waxa lagu qiimeeyaa thaqaafadiisa marka thaqaafada markaa fiiriso yani waxyaalaha soo saaray kamid tahay yani qarnigii 11aad thaqaafada islaamka waxay tan ugu sareysa waxyaalaha ugu waaweyn ka soo baxay waxa kamid ahaa culimo waaweyn oo gaarsiiyay mataqaana islaamka soo gaarsiiyay meel wanaagsan oo aad loo bartay culimadaas marba waxay isticmaali jireen dadka ku fiican fanka dadka ku fiican yani shaaciriinta ku fiican dadka ku fiican aftahanka ay soo dhaweysan jireen waxay u soo dhaweysan jireen waxa way qofka marka aad maqalkiisa ku raaxaysato waxa uu sheegay inaad baranaysaa in fact psychologists waxay isku raaceen heesta ilmaha in lagu baro farta markii la barayo yani 1 2 3 marka la barayo ama alphabet lagu barayo English la barayo waxa lagu barayaa si heesa loo baraa waayo heesta qabashadeeda way sahlan tahay marka haddii aad ma taqaanaa hees shacabkii dadkaagii Soomaali gabigeed gogashaan wixii dhigay garanaya qarannimo qabiil male fanaankuye qaymay leeyihiin ana waan qadariyaa waa bari xusuus mudan fanku waa hidiya dhaqan waa suugaan abwaaneed fanaaniin ka heeseen murti hodan ah lagu shubay shacab lagu hogaamiyey dadku haybsadaan badi loo wada haween yahay waa bari xusuus mudan hambaliya salaan iyo niyad saafi oo wacan nabad kugu sarootinay sii soco cigaalow adigoo salaamo ah sama kula jeclaanay saakirkii ku nabadgeeda heesihii lagu xoreynayay heesihii lagu abaabulayay heesihii lagu dhisay dalka heesihii lagu dadka lagu jaheynayay kii fikir horumar aan dhiirigelinayay qofka markii loo heeso ama dhiirigelin baa jirtay oo dhinaca wanaagsana Axmed wuxuu ka ahaa kakow abwaanadii Soomaaliyana ayagana waxay ahaayeen door weyn waxaan xasuustaa aniga abwaan la oran jiray Xasan Sheekh Muumin Axmed Cigaal waa abwaan usufan Xasan Sheekh Muumin waa shabeelnaagad iyo xaasidooda dhig sameyn jiray riwaayadaha haddana wuxuu ahaa
heesihii dugsiyada aaday iyo ogaada iyo ninkii samayn jiray weeye iskoolaadka barnaamijyada samayn jiray ardayda isku doori jiray abwaanintii ka damayn jirtay xasan mu'min allah naxariiste markii Djibouti xorowdana Djibouti baa si official loogu tada jirta runtii waxa weeye dhaqankeennii Soomaaliga ahaa waa laga tagay qoraalkii waa laga tagay sababta keenaysana waxa weeye ugu muhiimsan dadkii odayaasha ama aqoon-yahanada ahaa oo iyagu laftigooda u arkaba in ay haddii ay luqad kala isticmaalaan aan loo arkayn qofka aqoon-yahan inuu yahay dadkii hore iyo dadkan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin bayna ka mid tahay waxaan xasuustaa erey bixinta marka la sameynayay luqadda Soomaaliga dad barofesoro ah ayaa luqadani sameyn jiray iyagoo ka soo qaadaya luqado kale kuna bedelaya luqadeennii hooyo ee Soomaaliga maanta waxaan la joogaa Axmed waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelin lahaa Axmed in bal la isku dayo meeshii ilmaha yar uu dhageysan lahaa heeso ama Carbeed ama Ingiriisa ama Faransiisa ama German depends where our children live now in la isku dayo in afka Soomaaliga la ilaaliyo haddana markaan hadlayo kelmadda Ingiriisiga ku jira it's wrong ma aha inay ku jiraan waxay inaan ku hadalno afka rasmiga oo Soomaaliga ah heerkaasaan maraynaa marka at least caruurteennii waa in la ilaaliyaa oo loo xafido afkii lana soco Axmedow mas-uuliyadaasu adiga iyo dad maanta aad nagala joogto ayaa mas-uuliyadoodu saarantay iyo dhammaan mudanayaasha nagala soo qayb galay caawa munaasabadan quruxda badan leh oo aan ugu talagalay inaan ku sagootino legend fanaan abwaan Axmed Cali Cigaal Axmed Cali Cigaal soo dhawow sii dhawow waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad noogu imaado Australia hadda ka horna waan dhahanay Australia waa wadan fog marka anaga aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa qofkaas oo kale oo muhiim ka ah hadduu noo imaado oo waqtiga dheer iyo jidka dheer noo soo maro we appreciate waa ku mahadcelinaynaa adaaba fankii iyo sugaantii iyo af Soomaaligii uusan maanta joogin heerkii laga rabay mas'uuliyaddu waxa ay saaran tahay waa fanaaniinta iyo abwaaniinta runtii taas aniga soo kicisay oo aan rabay caawa maadaama fanaanka qaran uu naga tagayo inaan kula dardaarmo oo aan iraahdo waxaan ka codsanayaa maadaama aad tahay fanaan qaran inaad dhexda u xirato Axmed horta waxaan rabaa marka ugu horreysay inaan u sheego markaan noo timidnay oo jacaylkii baa noo yimid magaalada way wada jeclaatay intii waxaysatay intii kalena hadday raadinayaan oo iyaga carradayba feereerinayaan marka jacaylkii 40 sano aan ugu daldalaysa hadda waaba nagu bilowday taa intaasaan ka leeyahay tan labaad waxa weeye anigoo fursadan ka faa'iideysanaya Axmed runtii waqtiga ee aan soo weynay maahane aniga riwaayad baa bay diyaarsanayd baad goobka jacaylka la yiraahdo heesadeeda haddaan yar ka taabto hees ka mid ah waxay leedahay anigoo barbaaro baahida jacayl qaba intaan baad goob maray caawaan bandhigayaa bulshada baligaho marka hada Cabdirashiid Nacaaw adigoo caruuro aan wali cagaha dhigan hadduu caashaq kugu dhaco cilmi baaristeedii ay kaana helay adigoo ciroola caruur badan hore u dhalay haddii caashaq kugu dhaco cidina kugu garaabay ila caruur badan istaagay moogta xaas baa leedahay cidina haddana waa lagu hayaa maxaa dhacaysa Axmedow madow aad iyo aad yaan kugu faraxnay imaashaaga noo timaaday insha Allah ma sha Allah waxaan ilaahay ka baryaa inuu ilaahay safarkaaga kugu nabadgeliyo oo ku gaarsiiyo meesha aad doonayso insha Allah dadkiina naga wada salaanto intaasan ka baxay dadkeena halkan jooga oo waxalifa oo murtimaalka inaynu xigmadeena ururino inaynu gadno oo bulshada ka gadno oo ku tilmaamantahay muraayada iyo dadkii qaranka Soomaaliyeed aadka ugu horeeya taariikhda ka tagay aad iyo aad baad dhamaantayo aad meel weyn ugaga taala adiga iyo intii kula mid ah waxaad sii dheertahay oo dad badan aad la dheertahay ama dadka aad skiilka kula jirta ama heesaad kula jirta fanaaniinta wadaniyad
caawa ma hadli karo ma sheekayn karo waayo san idinku imid reer Melbourne waxaan ku jiray farxad iyo macsuumad iyo kalgacayl iyo muxubo fanaan Soomaaliyeed lagu soo dhaweeyo noloshayda maba arag hore uma arkin quruxda badan ama aqoonsigaas quruxda badan Gulaad Cabdi Wahan Hon Cable TV magaalada Melbourne waddanka Australia